waxaan samaystay hees xilligii burcadu ay kacsaneed 2009 baan hees samaystay waxaan u qaaday gabar la yiraahdo bilan gabadhaas aad baan u jeclaa balse 40 cisho kadib bil iyo 10 bari markii heshiiskii guurkeena soo dhamaaday ayaa waxa aragtay baawur badan oo leeyahay calawida saarfka saabuun qubaysta markii ma soo dhigtay tabacdu waxa tiri hadaan dollar haysano aadan burcad badeed weyn aadan ahayn isla ma jaan qaadi karno lacag ma haysidii nin ag fadhiyay isna baa u sii mahmaahay wuxuu yiri jacayl bilaa fulus ninka la hawa maxaa jacayl ka ma haysto lacag maxad hawada weeyay macna waxa isku taxluujiyay gabadhii inaan hees u qaado balse laxan ayaan waayay muusig markii kaba ayaan qabay jambala laamiga ayaan sii qaaday gaalkacyo heestii waxaan saaray kabahayga dacaska jambalka aan qabay baan laxan uga dhigay waxay ahayd heestu indhahaygan basaasay barambam baalashooda ilmeeyay barambam bidhaantii quruxdaaday barambam u barooranayaane barambam alla beer adkidaayay barambam bilan beer adkidaayay barambam intii aan ku baryaayay barambam bad haddaan u socdaalo barambam oo burcadda aan ku biiro barambam baaribaad noqon lahayde barambam alla beer adkidaayay barambam bilan beer adkidaayay barambam kabihii ayaa waxaan ka dhigtay laxan waxa la yiri Soomaali waxa ku maamaaday cayri cayma madiido cayri cayma madiido qofku markuu waxba u san haysan iyo markuu wax yar haysto isku mid ma aha waxaaga yarka hadii aad iimaansato waad bis kabihii ayaa waxaan aaminay inaan ka sameyn karo muusig iyo laxan kabta midigta markaan qaado barram bay tiraada tanna bam baan ka siyaa bixida indhahaygan basaasay barram bam kabihii shanqartoodii laxankii qaabkaas heesta u saartay kabacdi waxaan hindisay dad badan baa soo baxay kuwa dhaanta tumaya kuwa arrimo badan soo saaray kuwa nooc kala kuwa aan soo batay waxa la igu yiri niyahow dhaantooyin baa soo baxay intaad garow ku maqnayd oo galka ay ka maqnayd bal ka waran dhaantooyinka bedel ku samee change waxa maxaa nin wixiisa u bedelayaa aniga abwaan baan leeyahay Cabdi Ali Boos baa leeyahay wuxuu igu yiri hees intaad bedel maskaxdaada wax ku dhool garaysaa in adigu aad mirahaaga saaratid laxan iyo muusig marka waxaan samaystay dhaanto dalkayga guriisa galkacyo kaliya waxaan idhi ho gu'i ma laabna mana aanan gaboobin gabanimana waa ka tagay mana aanan gabin gobolkan ku noolahay degmadiisa gaalkacyo koonfur iyo garsoor iyo guudka horumareed ee geegidu ay ku taalo ilaa tiira garoob gabyaaba ii taqaan gawaarida gaashaaman gudahooda magalo kana gooyay iyo kana qaatayba gulahoosina dhaanto fiican bay ahayd laakiinse dhaantooyinka muusig baa la soo saaraa muusig ma haysano wasaaraduna fan garay oo muusig noo siiyana ma hayo anu laxanka waan garanayaa muusig waan garaa aqaan sidaas la eg waagi dambe adu 2010kii gabar kalaan isbarnay waan isguursanay annagoo muddo 6 bilood isqabnaa ayay gabadhi waxay aaday nin la yiraahdo Magafi oo carabaha jooga Liibiyada Talyaaniga u taariibiya imana sheegin aniga waxba lacag bay urursatay ayuutay inaagu ay galaan way iska tagtay gabadhi hees baan u sameeyay meel dibadda bay iga soo wacday telefoon waxay igu tiri wariyaa bay tiri ha dalka Soomaaliya imay soo oran waxay igu tiri Afrikada madow baad joogtaa imana soo wici kartay waxaan u bixiyay gabadhi libdaran wax aan lib iyo abaalba aan lahayn baan ka dhigay gabadhaas heesta markaan u sameeyay mirihii waxaan ugu macnaha ugu faanaya in laascaano magaalo yaado aan gabar kale oo ka wanaagsan ka helay marka heestii muusig baan u waayay markaas waxa iga dhawaa miiskaan oo kale oo aan muusig uga dhigay waxaan idhi laadankiyo ciyaartiyo lagdankii habeenkii laadaabtii aan kugu shubay jacaylkeeni laasimay daran ho daran jacaylkeeni laasimay haddaad laaday wacadkii anigana lurtaydiyo inaan liito jeceshahay aan kala lugayne mar aan laadka kula helo
maxaan laqanyo ku dilay maxaan labawan ku qalay maxaan kugu lamaanaa sidii ladane aan dhalay maxaan laabta kugu siday adiguna libdaraaney haddaad mooday inaan lumay hablo lulaya laafiyaha midabkoodu luul yahay kala daabtaa shaqa laqdabiyo khiyaaniyo aan la barin lugooyada sowlaaska laas aano kama helin baan ugu hanjaba gabadhii